kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkan waxa idin kugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay ee bariga dhexe gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn xogaa xilligan soo gaarayna waxay sheegayaan in Ruushka ay Kuuriyada Waqooyi ay si toos ah ugu biirayaan dagaalka bariga dhexe iyagoona ku hanjabay in hubkooda nuclear-ka ay u adeegsan doonaan Israa'iil sidoo kale Mareykanka haddii ay joojin waayaan duqeymaha iyo weerarada ay ka geysanayaan qaybo kamid ah dalka Iran xogii u dambeeyay ayaa halkan idin kugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ugu soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo leegan balalkana furusay ku soo gaaraan muuqaalada kaliya xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay laag inoo saarso u gaar asxaab badan oo aad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno xiisada ka taagan bariga dhexe markaan waxay noqotay mid faraha ka sii baxday dagaalkana waxa uu galay maalinkiisii 12aad duqeymahana waxay noqdeen kuwo cirki isku sii shareeray oo daqiiqada ka dambeysa ay dhacayaan duqeymo ka culus kuwii hore u dhacay waxaana sidoo kale Iran ay bartilmaameedsanaysaa goobo muhiim u ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iilba dagaalka markaana waxa si toos ah ugu soo biiraya isla markaana ugu hanjabaya inay adeegsanayaan hubkoodii nuclear-ka Iran aan iraahday Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi waxayna wacd ay ku mareen haddii Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay ka baaqsan waayaan duqeymaha ay ka fulinayaan magaalooyinka waaweyn ee Iran ay iyaga dhankooda ay la soo bixi doonaan hubkooda oo si toos ahna ay u bartilmaameedsan doonaan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil wararka soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in Moscow iyo sidoo kale Pyongyang ay si dhow ula socdaan xaaladda isla markaana ay ka digayaan in haddii dagaalka si balaarto ay qaadi doonaan talaabooyin military oo ay ku jiraan isticmaalka hubka aadka ugu halista badan ee nuclear-ka mas'uuliyiin ka tirsan dalka Ruushka ayaa sheegay in weerarada iyo sidoo kale xaaladda haddii ay intaan iska sii bedesho ay noqon doonto mid xaaladda bariga dhexe faraha ka sii baxaysa haddii dagaalka ay ku soo biiraan Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi ay xaaladda ay noqon doonto mid halis ah oo mid hadda taagan ka sii halis badan mas'uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in weerarada iyo sidoo kale xiisadaha sii kordhaya ay halis gelinayaan amniga caalamka dawladda Ruushka ayaa sidoo kale ku eedeysay Mareykanka in ay si hurinayso colaadda iyadoo si buuxda u taageeraysa Israa'iil dhinaca kalena hoggaanka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay adeegsadaan dhammaan awoodaha military haddii xulafadooda lagu soo qaado weerar wararka ayaa waxay tilmaamayaan in Pyongyang ay wacdi ku martay in haddii dagaalka uu gaaro heer caalami ah ay adkaan doonto in hubka nuclear-ka adeegsigiisa si dhaqso ah loo joojiyo iyadoona ku hanjabaysa in Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi haddii hubkoodii ay mar ay la soo baxaan ay dib u celin doonaan xaaladda bariga dhexena ay noqon doonto mid kamdaakum ah iyadoo xilligan xaaladda bariga dhexe si aad ah loogu deerinayo Iran duqeymaha sida roobka ay ugu durusheynayso goobaha muhiimka u ah Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka hore Iran waxa ay cagtay u marsiisay saldhigyo military oo dhowr uu leeyahay Mareykanka kuwaas oo ku yaala qaybo kamid ah bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta iyadoo si gaar ah u bartilmaameysatay Iran saldhigyada waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Oman iyo sidoo kale isku taga Imaaraadka Carabta khilaafka bariga dhexe ayaa si gaar ah ugu lug leh dalalka Iran oo ay si weyn isu hayaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka Iran waxay hore u sheegtay inay diyaar u tahay inay si adag ugu jawaabto weerar kasta oo lagu soo qaado falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa ka digaya in haddii Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi ay si toos ah ugu lug yeeshaan dagaalka ay taasi sababi karto isku dhac balaaran oo xitaa keeni kara dagaal caalami ah oo saddex geesood ah iyadoona laga digayo in Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi inta aysan dagaalka ay ku soo biirin ay la rabo in dagaalka la qaboojiyo Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ayaa hore isugu dejiyay in ay dagaalkaasi dhaqso ay ku joojiyaan balse Iran ayaa dhankeeda diiday in dagaalkaasi gabi ahaanba la joojiyo inta ay ugu argudayso hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei waxayna sheegtay in
wixii horey ay u riday ay ahaayeen kaliya jawaab celin, balse dagaalka tooska ah oo ay la galayso wadamada khaliijka carabta iyo sidoo kale Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay hadda ay bilaaw ay u yihiin Iiraan, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan. Si kastaba ahaatee, ilaa hadda ma jirto xaqiijin rasmi ah oo muujinaysa in hubka nuclear-ka la diyaariyay ama si toos ah loo adeegsan doono, balse hanjabaadaha kala gedisan ee ka soo baxaya Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya kuwa si aad ah loo diyaariyay, maadaama mar walba ay hadlaan ay ku celcelinayaan in hubkoodii nuclear-ka uu diyaarsan yahay, ay dhawaan ay la soo bixi doonaan haddii Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay joojin waayaan duqeymaha iyo weerarada ay la bartilmaameedsanayaan magaalooyinka waaweyn ee Iiraan, iyadoo la ogyahay in Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka weeraradooda ay la bartilmaameedsadaan dadka birmigeedada, iskuulada iyo sidoo kale goobaha kala gedisan, waxaana arintaas caro xoogan ay ku abuurtay wadamo badan oo ka mid ah Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, waana labada wadan ee sida aadka xilligan u taageeraya Iiraan, isla markaana si adag ugu soo horjeeda duulaanka qaaban ee ku hayaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka. Hadallada kulul ee ka imaanaya dhinacyada kala duwan ayaa sii kordhinaya cabsida laga qabo in colaadda Bariga Dhexe ay ka gudubto xadka gobolka, waxaana arintan laga cabsi qabaa in dagaalka uu waqtigiisa uu sii dheeraado, maadaama hanjabaadaha kala duwan hawada la isku marinaya ay yihiin kuwo aad u culus, isla markaana sababi kara in dagaalka muddo bilooyin ah uu sii socdo, xilligan xaaladda ay tahay mid aad iskugu cakiran oo labada dhinac amaba saddexda dhinac aan iraahday hanjabaadahooda uusan kala joogsiga lahayn, xilligan ay si toos ah ugu soo biirayaan wadamada Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo hanjabaadahooda maalinba maalinta ka dambeysa ay soo taraya. wixii xogo ee ku soo kordho xaaladda Bariga Dhexe iyo sidoo kale wadamada khaliijka, hanjabaadaha culus ee hawada isku marinayaan ee dhinacyada dagaalka ka dhaxeeya ee kala ah Israa'iil, Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan, waxaana arintan laga cabsi qabaa in dagaalka uu waqtigiisa uu sii dheeraado, maadaama hanjabaadaha kala duwan hawada la isku marinaya ay yihiin kuwo aad u culus, isla markaana sababi kara in dagaalka muddo bilooyin ah uu sii socdo, xilligan xaaladda ay tahay mid aad iskugu cakiran oo labada dhinac amaba saddexda dhinac aan iraahday hanjabaadahooda uusan kala joogsiga lahayn, xilligan ay si toos ah ugu soo biirayaan wadamada Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo hanjabaadahooda maalinba maalinta ka dambeysa ay soo taraya. wixii xogo ee ku soo kordho xaaladda Bariga Dhexe iyo sidoo kale wadamada khaliijka, hanjabaadaha culus ee hawada isku marinayaan ee dhinacyada dagaalka ka dhaxeeya ee kala ah Israa'iil, Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan, iyo ku soo biiritaanka ee Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, xogeeyna xiga ayaa idinku soo gudbin doonaa. wixii warar ee ku soo kordhay ee la xiriira Bariga Dhexena, muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena, fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay, like inoo saar si oo gaar asxaab badan. waad ku mahadsantahay daawashadaada.